Dhegeystayaal aadanuhu wuxuu leeyahay dabeecado tiro badan oo iska soo horjeeda dabeecado bulsho ahaan qaarkood la ogol yahay guud ahaanna dadyowga dunidu ay dulqaad u leeyihiin iyo kuwo kale oo aan la jeclayn ciddii ku tilmaamanna lagu dhaliilo qof baa geesi ah oo boqol aan dhaba uga leexan mid kalena waa fulay shimbiraha aan hubin hadday sabab axleeyaan qof baa deeqsi ah oo siday baddu u faxan tahay u faxan mid kalena waa qaduuc xushada aan uga kicin qof baa aftahana oo markuu dabeebanayo aan laga jeesan karin mid kalena waa afgarooc maanta oo dhan hadduu wax sheegayo aan dulucda hadalkiisa waxba lagala soo bixi karin qof baa gob ah oo dadka uu la nool yahay af iyo ficil wanaagsan kula jooga mid kalena waa ardaal xumin mooye aan inna wax wanaaga laga filan marka uu soo muuqdana laga naxo qof baa xishood badan oo ruuxa uu hortaagan yahay aan indhaha ka eegi karin mid kalena waa maxishoode aan caana u kaban isaga oo suxud saaxuda inuu dadka soo horjoogsado qof baa baxalli qabowle oo sida hayilka ay carruuruhu kolba dhinac u kaxaystaan waxaana jira mid ay wax yari kiciyaanoo wiliiriga ka camal xun qof baa nabadda jecel oo goor noolba ka dhabaynteeda u xusul duuba welibana xoolihiisa ku bixiya waxaana jira mid kale oo hurinta colaadda iyo xasaradaha ay ugu baxdo dhinaca kale waxaa la yidhaahdaa qof waliba wuxuu ka samaysan yahay laba shakhsiyadood oo bulshada uu la nool yahay uu mid doo tuso midina ay isaga u qarsoon tahay in laga ogaadana aanu jeclayn sidaa darteed dabeecadaha kuwa inay liitaan la isku raacsan yahay cidda lihi ma qirato oo waa lagu xantaa mooye inta caddaan loogu sheego inay madaxa u ruxdahay ma dhacdo macnaheedu wuxuu yahay haddii muudarka bakhaylka ah aad muudar ku sheegto ama ruux lagu yaqaan inuu maxishoodo yahay aad ku tiraahdo maxishoodo ayaa tahay kaama ogolaado inaynaan kala badbaadinna way u dhowdahay sababaha dartood baa loola yaabaa markii la arko gabyaa ama qoraal ku dhiirada inuu qirto isla markaana soo bandhigo qaar ka mid ah dabeecadaha aan wanaagsanayn ee uu leeyahay aaraabana ciddii lagu sheego lagu daraabo tixiya tiraabba tira ahaan suugaanta caalamiga ah markii laga doono waa wax aan badnayn wayse jirtaayoo suugaanta qiraalka ayay ku magacaabaan waa marka maansayahanka ama qoraalku uu diido inuu ku noolaado laba shakhsiyadood oo midna dadka la tuso midna laga qariyo ra'yiga dadweynuhu ka qabo waa marka intuu ka xoroobo uu caddaan u soo bandhigo tilmaamaha qofeed ee dhab ahaan uu leeyahay iyo arrimaha nolosha waxa uu ka rumaysan yahay had iyo goorna ka duwan waxa dadka inta badani ay ka rumaysan yihiin waa tahay kor dhow tixda aan idin marin doono waxaa allaha u naxariistee tiriyey gabyaa la odhan jiray axmed ismaaciil diiriye oo qaasin loo yaqiin waana tix madi ah oo tu la mid ah aanan maansada soomaalida ku arag dhinac waa lama suureeyaanoo gabyaagu wuxuu ku sheeganayaa inuu leeyahay dabeecado iska soo horjeeda oo garaadka caadiga ee aadanaha aan laga dhaadhicin karin dhinaca kalena waa tix suugaanta qiraalka lagu tirin karo oo ciddii ku nacaysa iyo ciddii ugu bogaysaba uu hal abuurku wixii ay ku xaman jirtay uu bulshadiisa ugu qiranayo tixdan oo mararka qaarkood macaan iyo qaraar lagu magacaabo wuxuu qaasintiriyey mar lagu yidhi nin yahow tiro badnida meel laguu raaco waa la garan la'yahay maad dhaqankaaga wax ka doorisid sidaa iyo sidaas baa fiicane maad yeeshid sidaas iyo sidaasna lama ammaanine maad iska daysid isaga oo haddaba raggii talooyinkaas u soo jeedin jiray u jawaabaya iskana warramaya ayuu bilowga tixda ugu sheegayaa inuu yahay nin ka kooban laba shakhsiyadood oo aanu midna qarsanayn inuu la mid yahay geedka dacarta ah ee kharaarka badan marna marabka macaan laga dhuro in labadiisa gacmood ay midi martida iyo maatadaba u roon tahay midina midiyo af badan iyo sunba ay ku maran tahay wixii ay aragtana warjeefto iyo inuu yahay dabeecado kale kaana nin leh iskalena weyn sida siinkii gaalkacyood in mar walba siduu ahaa iyo halkii lagu ogaa loogu yimaado wuxuu yidhi dacartuba mar bay marab dhashaad mudsataa dhabaqe waxaan ahay macaan iyo qaraad meel ku wada yaal leh midigtayda
iyo bidixdu waa laba mataanoode midi waa martida soora iyo maata daadihise midina waa midiyo xiiraya iyo mur iyo deebaaqe masalooyin talantaaliya yaan maandha leeyahay min matiiro keliyuun qabsada hay malaynina intaa markuu ku ararto ayuu tirinayaa isaga oo aan waxba qarsanayn dabeecadaha iska soo horjeeda ee uu leeyahay mar waa nin guhaad wacanoo aan cidnaba ku gardaroon marna waa laayaan aan geligelin garina ka bixin mar waa sheekh saahida marna waa khamriyo cabfalan mar waa ikhyaar waa yeelka reerka ka mid ah oo talooyinkiisa lagu meel maro marna waa reer magaal kolba halka uu jiro la isweydiiyo mar waa xalaal miirad xaaraanta ka caagan marna waa tuug mariyoo madoobeeyey oo hadday u degtaan xoolaha rasuulkuna aanay ka ammaan helin mar waa awliyadu halka ay ku kulanto ninka maamula marna waa saaxiibada shaydaanka iyo jinkaba kan ugu weyn waa nin cid malayn kartaa aanay jirinoo dhalaarta labadeeda gelin aan isku si ahayn nin dhaqanka muslimka iyo gaaladaba garanaya nin aayihiisa aakhirana malaa'igaha naarta iyo kuwa jannadu ay ku murmaanoo iskuna qabsadaan wuxuu yidhi mar baan ahay muddee camal sanood maagista aqoonne marna macangaga laayaan ahoo miigan baan ahay mar baan ahay muftiga saahidnimo mawrucuu garaye marna makhawi waashoo khamriga miista baan ahay mar baan ahay murtiya baanisaba madaxda reeraaye ay weliba muuniya dulqaad igu masheertaane marna reer magaal loo fara oon muuqan baan ahay mar baan ahay nin xaaraan maqdaca marinti diinkiiye marna tuug mu'diya baan ahoon maal rasuul bixin mar baan ahay maqaam awliyada maqadinkoodii marna mudanta shaydaanka iyo maalkin baan ahay miisaanna ima saari karo nin imareeyaay waxaan ahay nin midabaynaya oo maalin bays roge muuqaygu gelinkiiba waa muulad gooniyahe muslimka iyo gaalada dirkaba waan macno aqaane malaa'igta naarta iyo jannadu way igu muran tahay wuxuu qaasiinteena ku soo gabagabaynayaa waayo arag rag soo maamulay ayuunbaa i garan karee nin walbow iigu soo hagaag dabeecadahayga kolba tii kuula wacnaata ee inaad iigu timaaddo ay kaa maaragsiin weydo wuxuu yidhi ninkii maalmo badan soo jiray oo madaxu boosaystay ee ina rag maamuli yiqiin waa imaan garanne nin walbow halkii kula macaan ay muhata laabtaadu ee aanad madadaaladeed igala maarmaynin iska soo mar waa kuu bannaan marin addoontahay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba